kumaandooska hal qof iyo hal baalootay ciidanka xoogga dalka si gaarana ugu tababaran burburinta saldhigyada argagixisada oo qayb ka ahaa ciidamadii lagu soo tababaray dalka Eritrea iyo dhiiranayaasha xorriyadoonka deegaanka oo iskaashanaya ayaa howlgal qorshaysan oo lagu qaarijiyo 20 qawaarij horjoogayaal iyo maleeshiyaadkii askarta u ahayd isugu jira ah ka fuliyay hawdka fog ee ciidciidka oo hoostaga deegaanka Cali Foolere halkaas oo qawaarijtu ay si dhuumaalaysi ah ku soo galeen taliyaha kumaandooska hal qof iyo hal baalooto Cali Cabdi Ciise Cabdi Xukun oo nala hadlay ayaa sheegay in qorshaha howlgalku ahaa beegsiga horjoogayaasha qawaarijta laguna guuleystay bartilmaameedkii howlgalka ayna sii wadi doonaan baacsiga naflacaariga qawaarijta kumaandooska hal qof iyo hal baalooto oo si gaar ah ugu tababaran burburinta saldhigyada argagixisada oo saldhigoodu yahay degmada Al-Kawsar ayaa howlgallo lagu baacsanaya baxsadka qawaarijta naflacaariga ah maalmihii ugu dambeeyay ka waday nawaaxiga deegaanka Cali Foolere ilaa degmada Al-Kawsar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaan dhool Cabdilla Raage raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed degmada Al-Kawsar gobolka Shabeellaha Dhexe